kusoo dhawo Fan Academy haddaad nagu cusubtaa fadlan subscribe leh kadibna furo gambaleelka si muuqaal kasta aynu soo gelino kugu soo dhaco isla marka aynu soo gelino waad mahadsan tahay inta aynu hore u gelin barnaamijkeena haddii aad doonaysid inaad ku barato luqadda Englishka si online ah fadlan booqo website-keena fanacademy.com sidoo kale igala soo xiriir ciwaanada hoos ku xusan waad mahadsan tahay mar kale ma ogtahay dad badan oo Soomaaliyeed inay ku hadlaan luqado qalaad ayagoona u tagin goobo waxbarasho ama aan helin macallin si qaas ah wax u baro luqadaha ay bartaan dadka Soomaaliyeed ayagoo aan u tagin goobo waxbarasho waxaa ka mid ah luqadda Hindiga dad badan oo ku nool magaalooyinka xeebaha leh ama dekedaha leh ee Soomaaliya sida Kismaayo, Boosaaso, Berbera iyo magaalooyinka la midka ah ay ku nool yihiin dadyo aad u fara badan oo ku hadla luqadda afka Hindiga marka hore qofka markuu doonayo luqad inuu barto waxaa looga baahan yahay niyad iyo wax kugu dhaqaajinayo inaad baratid haddaba dadkan afka Hindiga ku hadlo waxaa ku dhaliyay inay bartaan afka Hindiga maadaama ay ka shaqaystaan dekedaha ku yaalo magaalooyinkaas ayna u baahan yihiin inay ganacsi la sameeyaan dadka Hindida ah ee saaran doomaha ama maraakiibta ku soo xirta dekedahaas markay ka gasho baahi shay waxa hubaal ah shaygaas sida ku baran lahayd ama ku heli lahayd inaad ku taxaloojisid ugu dambeynna aad gaartid riyadaadii dadkani waxay sameeyaan inay dhageystaan dadka Hindida ah ee saaran maraakiibta iyo doomaha kadibna ay isku dayaan inay u jawaab celiyaan muddo kadib waxay la qabsanayaan hadalkii dadka Hindida ah ayagana waxay dhagta ka baranayaan luqadii muddo kadib waxaad arkaysaa dadkii oo afka Hindiga ku hadlayo sidoo kale waxaa jiro dad fara badan oo ku hadla luqadda Carabiga waliba midda lahjada ah hawo badnaadaan hablaheena Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed waxay ka bartaan luqadda Carabiga ayagoo daawanaya musalsalaadka taxanaha ay laga soo daayo TV-yada waxaad arkaysaa gabdhaha aad u fara badan oo fahmaya luqadda Carabiga qaasatan midda lahjiga ah waxa ay ka barteen daawashada filimada musalsalaadka ah waxay gabdhaha aad u xiiseeyaan musalsalaadka sida awgeed waxaa qasab ku noqonayso inay fahmaan luqadda musalsalka gabdhaha Soomaaliyeed waxay aad u yaqaanaan luqadda Carabiga iyo waliba luqadda Hindiga ayagoo ka bartay oo kaliya TV-ga haddaba qof kasta oo jecel inuu barto luqad hadduu niyad u haayo waxyaabihii u fududeynaya inuu ku barto luqadana uu haysto waxa hubaal ah inuu baran karo dadka barta luqadaha qalaad ee ka barto TV-yada ma aha kaliya Soomaalida sidoo kale dadyowga kale ee caalamka way sameeyaan arintaasi Tim Donner waa wiil u dhashay waddanka Mareykanka wiilka in badan ayaa la hadal hayay sanadihii u dambeeyay wiilkan wuxuu bartay in ka badan 20 luqadood uu ka bartay daawashada aflaanta iyo TV-yada